gabadhan waxay leedahay kalideeda ayaan gaday si uu u dhaco meherkeyga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كان هانيمان وأنا قولاشين حنان دقن ما عندنا برامج كانوا حنا قصة قادم دونا قصة أما شيكو ذا وحنا لوزات قبر أنه حي إلى هاي كل ذي عيان كذي سيو رعو مهر كيا واتن قصة إنه بلاوته قبر أنه حي إلى هاي وحاوتي وحبرشة ذا وحنا ديكنا يا جامعة أبيه نوحوش على إنا نقضو إنجنيرات meesha aan deganeen ama deegaanka aan markaas ku nooleen bulshada degan ama reeraha degan gabdhahooda may ogoleen inay wax bartaan iyo waliba inay banaanka aadaan sababtoo ay waxay aaminsanaayeen gabadha inay sharaf ku leedahay gurigeeda inay joogto laakiin aabaheey ma uusan ahayn sidaas dadka meeshaas degan waxay waxbarashadu u diri jireen kaliya wiilasha waxayna dhihi jireen gabdhaha inay wax bartaan ma aha sababtoo ay gabar waxbarashadeeda waxa u dambayso jiko iyo waxaas ay aaminsanaayeen iyo sidoo kale gabar markay guriga ka tagto inay sharafta reerkaasi hoos u dhigayso gabadhana inay gurigeeda ku noolaato ay tahay sharafta reerka iyo gabadha sharafteeda ilaa uu ka soo doonanayo ninka markaas guursanayo laakiin aabahay dadkaas ku fikrad ma ahayn fikradiisana waa ay ka duwaneed anigana wuxuu igu qabay kalsooni dabcan kalsoonidaasna waxay ahayd kalsooni labada dhinac ka dhisan sababtoo ah anigaba raali kama ahayn aabahay wax madaxiisa hoos geenayo ama madaxiisa dhulka geenayo oo sharaftiisa hoos u dhigayo inaan aniga sameeyo aabahay kalsoonida uu igu qabay waxaan ahaa qof kalsoonidaas oo kaleeto ama kalsoonidaas ka soo baxo oo aanan aabaheed kalsoonidiisa aanan wax dhibaato u geysan sheekadeena waxay ahayd sida tan aniga waxaan dhiganayaa jaamacadda aan dhiganayo wiil dhigto ayaan isbaranay oo aan isjeclaanay wiilka markaan isjeclaanay aabahay iyo familkayga ayaan u imaaday waxaana u sheegay inaan wiilkaas jecelnahay xiriirna uu naga dhexeeyo aabahay iguma adkeenin wuxuu idhahay mis jecelshihiin haa waa inuu ii imaado oo iga soo kaa doonto oo dabcan qaduub kuu sameeyo ama farantigelis kuu sameeyo si ay ahaatiin laba qof oo isku doonan oo laysku ogyahay waayahay ayaan dhahay waxaan ku laabtay wiilkii waxaana ku dhahay waalidkay sidaas ayay dhahayeen waa inaad soo doonatid wuxuu igu yiri waayahay waan ku soo doonanayaa laakiin waxba iga kala dhiriman intaan waxayga kasoo dhamaystiranayo isug waxyar oo waqti isi waayahay ayaan dhahay waqtiga ayaan siiyay ilaa uu maalin maalmaha ka mid ah ii yimaado oo igu dhaho haye diyaar ayaan ahay aniga iyo aabahay waxaan rabnaa inaan familkaaga ka soo doonto waan farxay dabcan waxaana ku dhahay waayahay familkayga ayaan u sheegayaa waan baxay oo aabahay familkayga ayaan u sheegay inay diyaar yihiin inay isoo doontaan aabahay wuxuu yiri haye waayahay maalin heblo iyo waqtigaas saacadaas ha imaadaan waan baxay waqtigii iyo saacadii ayaan u sheegay wayna imaadeen wiilkii iyo aabahiis wayna soo doonteen oo doonashadii iyo farantigeliskii ayaa dhacay aabaheena wuxuu dhahay waxaan wataa hal shuruudaas oo ah inay gabadhayda jaamacadda dhammaysato adigana aad jaamacadaada dhammaysatid markaa jaamacadda dhammaysatiin kadibna uu dhaco meherkiini iyo guurkiini sababtoo ah aniga riyadeedu waxay tahay gabadhayda inay injineerad noqoto mana rabi inay riyadeyda iyo mustaqbalkeedaba baaba oo aad hadda isguursataan dabcan wiilkii iyo aabihiis waa ay ogolaadeen waxayna dhaheen okay waxaan dhigan doonaa meherkeena iyo guurkeena kadib qalinjabinteena markaan jaamacadda ka qalinjabino aan dhameyno sidii ayaana lagu kala tegay oo qof walba hortiisa uu u baxay jaamacaddii ayaan dhameynay maalmaha ka mid ah ayay ahayd qalinjabinta jaamacadda qof walbana familkiisa wuu imaanayay si uu farxadda uga qayb qaato maalinta qalinjabinteena ama koofiyada aan tuuray dabcan maalintaas waxaa dhacay wax aniga aan la yaabay oo aad iyo aad iiga fajiciyay waxa ay ahayd qof ayaa imaaday uuna ii baray inuu aabihiis yahay waxaan dhahay aabaha miyaa qofkan haa yuu ahay qofkii marka ay soo doonanaysa kula socday oo familkayga iga soo doonay aad igu sheegtay inuu aabaha yahay markaas ayuu igu yiri qofkaas wuxuu ahay abtigay wuxuuna ii joogaa booska aabahay
aabahay kale aabahay labaad ayuu ii yahay asaga ayaan isoo koriyay aabahayna markaas uu ka maqnaay wadanka muusan joogin sidaas darteed ayaa abtigay ii soo raacay oo aan ii dhahay aabahay waaye markaas ayaan ku dhahay soo qalad maaha inaa familkeyga ku bartid abtiga inuu aabaha yahay uuna isoo doono markaas wuxuu yiri waxaan rabay aniga ma rabin inaan ku qasaariyo ama aan ku waayo aabahayna markaas jaanis muu haynin inuu imaado isoo kaa doono sidaas darteed ayaan abtigay usoo watay abtigeena aniga booska aabahay ayuu ii joogaa dabcan waan iska dhaafay kuma sii adkeenin sababtoo wiilka aniga aad iyo aad ayaan u jeclahay mana rabin inaa buuq iyo barbaleh meeshaas ka bilaawdo iyo niyad jab sidii ayaan iskaga daayay marka waan qalin jabinay waxaana laga soo wareegay muddo 2 sano ah qalin jabinteedii aabahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah wacay wuxuuna igu dhahay way sii dheeraatay maxaa la dhahaa sheekadiina sababta ay 2 sano ayaa kasoo wareegtay waqtigii qalin jabintiina waa inuu guurkiina dhaco intaan ka badan wax la sugo waa qalad waayahay ayaan dhahay aabahay wiilka ayaan u tagay waxaana ku dhahay 2 sano ayaan ku sugoyaa kabacdi 2 sano ayaan ku sugoyaa kadib markaan qalin jabinay waxa igu tiri waxaan rabaa inaan shaqaysto waan shaqo helo haddana waa shaqaysataa shaqana waa haysataa noloshaadana waa ku filan tahay waa inaa isoo doonatid guurkeena uu dhaco wuxuu ugu yiri ma ku soo doonan kari waa inaa waqti kale isugtid sababtoo aniga qarash ma hayo lacag ma haysto igu filan oo saan yeelo bla 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 iyo adiga arrimo saas ah okay ayaan dhahay waxaan ku dhahay waa shaqaysataa oo hadda shaqo la'aan ma tihid maxaa dhacay sidee aanan isoo doonan karin wuxuu dhahay waan ogahay waan shaqaystaa laakiin shaqadayda macaashka aan ka helo ama mushaharka aan ka helo iguma filno kumana filna inaa adiga kusoo doonto un guur noo dhiga iyo meherkeeni iyo waxaani soo marka waa inaa waqti ii sugtid si aan lacag u dhigto oo lacag aan maxaa la dhahaa meel u dhigto ugu talagalo guurkeeni inuu dhaco waxaan ku dhahay ilaa iyo intee ku sii sugaya 2 sano iyo 2 sano kaleeto jaamacadda looga dhineed 4 sano ayaa la marooyaa waan adiga ku xayiranahay familkeygana waxay dhaheen intaan ka badan ma sugi karno wuxuu igu dhahay waayahay ani ma ogi waqtiga noqon doonto laakiin waa inaan lacag aruuriyo anigana shaqo fiican ma haystin haya ayaan dhahay waana soo laabtay guriga ayaan kusoo noqday mana jirin waalidkay hadal aan kula laabto oo aan dhaho ninkii oo shaqaysanaya haddana wax ma haysto oo ima soo doonan karo waan fikiray maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay aadayeen fasax waxaa is urursaday asxaabteeni jaamacadda waxayna dhaheen waxaan aadaynaa 2 maalin oo fasax maxaa la dhahaa safar oo aan fasax kusoo qaadanayno meelo loo dalxiis tagayno 2 maalin lagu soo maqnaanayo si markaas isku maxsalaameeyo waxa laga yaabaa inaanan is arkin mar kaleeto qaar dibadda aadaan qaar meel kale aadaan magaalooyin kala shaqo u raadsadaan sida maanta iskula joognay aanan bari iskula joogi karin ayaan dhahay guriga ayaan imaaday waxaan u sheegay familkeyga inaan baxayno 2 maalin oo fasax aan soo qaadan doono dalxiis aan isku maxsalaameynayno aniga iyo ardayda jaamacadda aan wada dhiga jirnay طبعا waa iga ogolaadeen familkeyga waana isfasaxeen laakiin aniga ma aadin meesha fasaxa loo aadaayay ama dalxiiska loo aadaayay waan ogahay fikirka aan ku fikiray inuu yahay fikir xun balse waxaan ahaa qof jecel haayo oo aanan indho iyo miir toona lahayn maxaa dhacay maalintii aan dhahay fasaxayaan aadaya waxaan aaday magaalo kaleeto dhakhtar jooga waxaana soo sameeyay qaliin waxaanan bixiyay kilideyda oo aan gaday kilideydii ayaan u gaday si aan isku guursano wiilkii aan isjeclayn waan beeciyay 2 maalin kadibna waan soo laabtay anigoo wato lacagteyda iyo xanuun aad u fara badan dhaawacina oo igu yaalo guriga ayaan imaaday waxaana wacay maalin ka bacdi waxaana ku dhahay waxaan rabaa inaan is aragno wiilkan wuxuu bilaabay maalmihii ugu dambeeyay inuu si wanaagsan ila hadlin inuu iga sii cararo ana waxaan isdhahay wuxuu saan u sameeyay waxa waaye maadaama uusan awoodin inuu ku soo doonto wuxuu ka xishoonayaa inuu macnaha kula sii hadlo sababtoo ay sida rabtid uu ku sameyn karo waa inaa caawisid
waan wacay waxaan ku dhahay markii imaadana waxaan ku dhahay waatana lacagtii maanta kadib lacag uma baahnid lacagna uma xayiranin waa ina reerkayga iga soo doonatid wuu ku farxay wuuna ii mahad celiyay wuxuuna idarinsiiyay farxad maadaama farxad aad u fara badan walow uusan ila hadli jirin sida uu maanta ila hadlayo farxadda uu maanta ii muujinayana uusan ii muuji jirin maalmihii lasoo dhaafay wuxuu qaaday lacagtii wuxuuna igu yiri waan kusoo doonanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan familkayga ayaan u tagayaa meherkeenana si dhaqsiya ayuu u dhici doonaa waxaana noqon doonaa nin iyo naagtiisii aad ayaan u mahadsan tahay inaa garab istaagtay maxaa dhacay maalintii ka dambeysay muusan imaan waan wacay telefoonkana igama qaban sidoo kale maalintii labaad ayaan wacay telefoonka igama qabanayo maalintii saddexaad ayaan wacay telefoonka igama qabanayo go-aan ayaan gaaray inaan u tago oo aan ogaado sababta uusan telefoonka iga qabanaynin aysan u imaanaynin oona iisoo waceynin waan baxay waxaan tagay gurigiisii albaabka ayaan gargaraacay waxaa iga furtay gabar waatuma waxaan ku dhahay hebel ma jooga waxay igu jawaabtay maxaa ka rabtaa hebel waxaan ku dhahay waxaan ka rabay iska dhaafee ma jooga markaas ay igu tiri yaa tahay adiga markaasaan ku dhahay adiga qofka aniga ahay adoona u weydiinin yaa tahay adiga markaas ay igu tiri waxaan ahay xaaskiisa dabcan markaas ayaa meer igu dambeysay waana dhacay oo waan meer daboolmay waxaan soo naxay ayadoo dad horteyda korkeyga ay taagtaagihiin biyo uga shushubayaan oo korkeyga dad fara badan ay buuxaan waan soo fadhiistay waxaana weydiiyey hebel gurigiisa gurigan ma yahay waxay ugu dhaheen haa waa hebel gurigiisii waan baxay gurigii ayaan gargaraacay mar kaleeto gabadhi guriga waa ay soo xiratay markii aan miir daboolmay gabadhi ayaa iga furtay waxay tiri ma aqaani qofkaa tahay mana aqaani waxa u miir daboolmatay mana rabi aniga inay dhibaato isoo gaarto walaalay macaani maxaa ka rabtaa hebel waxaan dhahay walaalay koobiya waxay ii keentay inay soo ag fadhiisatay waxaan ku dhahay yaa tahay adiga goormuusa ku gursaday wiilkan waxay igu tiri wiilkan waxaa dhalay abtigay waxay dhalay asaga eedadiisa wiilkana waa abtigay aniga hooyaday la dhashay ayaa dhalay waxaanan isku dooneen muddo 5 sano ka hor ayuu faraanta ii geliyay waxaan isku qaduubneen muddo 5 sano maanta 2 maalin ka horna guurkeena ayaa dhacay oo 7 ayaan ku jirnaa ayay tiri markaas ayaa adduunkii oo dhan ii soo koobmay waxaanan ogaaday muddo 4 sano ninka aniga ii qaduubnay sidoo kaleeto gabar kaleeto inay sugaysay muddo 5 sano oo ayadana faraanta u geliyay dabcan wuxuu doortay lacagtii aniga oo iga qaatay oo aan kalideeda ku iibiyay inuu gabadhaasi ku guursado waxaan sameeyay ayaan garan waayay reerkaygana uma sheegin waxaan aniga sameeyay iyo inay kalideeda maqan tahay waan soo baxay anigoo cagajiidayo xir iyo dhul meelaan joogana aan garanaynin laba khasaarana aan dareemayo khasaaro oo ah inaan waayay ninka aniga aan jeclaay intaasna aan familkayga ka dhaadhicinayo inuu nin wanaagsan yahay iyo inaan waayay kalideydii oo aan ahay maanta qof naafa oo halkii haysto waan soo baxay gurigayga ayaan imaaday anigoo xanuun fara badan dareemayo xanuun qalbiga iyo xanuun dhaawaca aniga ihaayo oon kalideeda ku maqan tahay cid aan wax u sheega ma aysan jirin familkayga waxaan ka dhaadhiciyaa oo aan dhahaa ninkii 4 sano aan sugayay oo iga tagay asigoona ii sheegin ayuu gabar kala guursaday mase waxaan ku dhahaa kalideedii lacagta aan ka bixiyay ayuu naa kale ku guursaday oo 5 sano u doonaneed wuxuu sheegayo dhan been ayay ahayd doonashadaani uu soo doontayba waxba kama jirin sababtoo ah waxay soo doonaan wuxuu ahay abtigiis oo aabihiis ma ahayn haddana shaki ayaa iiga jiroba ninka inuu abtigiis ahaa ay soo doonay waxaan u maleynayaa oday islaameed oo wadada kasoo kaxaystay inuu ahaa soo marka waxaan idin leeyahay gabdhow ha aaminina nin adinka aadan aqoonina
marka gabadhan waxay leedahay qisadaas ayaa igu dhacday qasaarihiigana mid yar ma ahan ilaa haddana familkeyga ma la wadaagin mana aqaano si aan ugu sheego marka wiilasha waxaan leeyahay haddii aadan gabadh ah rabin ha lugoynina ana dhihina waan idiin baahanahay waanan ku rabaa gabar adiga aadan rabin ha lugoynin oo faraanta ha u gelinin si orsana kuu sugtana reerkeeda ha uga doonanin haddii aadan rabin banaankaas ka mar gabadhan masaakiinta ah gabadhii adiga aa rabtay oo aad calmatay ku eko kaliga marka gabadhan waxay leedahay ka fiirsada dadka aad jaceylka la wadaagaysiin ama kalsoonida faraha badan aad siinaysin kalsooni aan aniga ku kalsoonaado wiilkaas ayaa maanta heerkan soo istaajisay inaan ka shalayo nolosheeda 4 sano iga qasaartay iyo kalideedii aan qasaariyay barnaamijkeena maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa iyo qisadii gabadhan ay nala wadaagtay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina hadda halkan nala soo gaarteen please subscribe noo saara channelkeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه مركلا أنكو كلنا هودا يقصة كلاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.